ورعصب لك سيد هاي ولا لأني وأنا في عنها هي ما أعرف تقول كي جيلا ولا المعرك إما دباتشرة وأنت تولدك مغلابوتون على الصبح صديق waxaan maqlay magaalada uu iibgeystay si uu lacagta ugu gato xubin baarlamaanka Puntland ما إن شاء الله والخير بقى صير نكي جيلها هدو تلذي أسيبي adduunyadii goormaa beerka laga raray war baarlamaanku aqoon buu rabaa ee maahan halgeel jira walaalle baarlamaanka waxaa ka mid noqon kara qof indheer garad ah ee qof indhow garad ah kama mid noqon karo والويلك سوق رالك أخرس كما يقان وما اسم غوري كرو wiilkayga geela sida wax loo qoro iyo sida wax loo aqriyo toonna ma yaqaan balse sumada geeliisu wuu yaqaanaa uuna sumadiyaa geela tiradiisana kama baxsato oo neef ayuu yaqaanaa nirigtaas dhalatay oo 4 jirka ah hadduu 4 sano uu ka maqnaa in hebnaa dhashay buu oranayaa oo wuu suuradayaa xoolaha marka wiilku aqoon dowladeed ma lahan ee aqoon geel buu leeyahay laga tag beelab kugu dhacday manka geeliisa suuradin yaqaana baa wuxuu suuradin waayey waxay bari imaanaya iyo ka talin waayey geela Soomaaliya ninkii garta u qaadi jiray markii dhalinyaradu dirto war gartu saas ma ahan garti baadiyaha ma ahan marka garyaqaan kala rabaa ma ahan garyaqaankii baadiyaha ee waa garyaqaan adduunyanaha la dooda oo yaqaana nidaamka iyo sharciyada dowliga sharciyada iyo nidaamka aad sheegaysid cid taqaan iyo cid ku dhaqantay toona maan arag ilka adiga aabba iyo nabadoonba u heh aqoontaad sheegayso saxiixagaa ka awood badan ee wiilkaa leedin tanay midba maalinkuu tali waliyaa waxaad i leedahay halkii laga daawanayay ummadda horumarkeeda wiilgeel jiraaha u dir war orad naga tag bala kula tashatay ummadda indhaha ka ridine war bulshadu waxay diiday diyaasbaro iyo laba shaatile ee wiilgeel jira ah oo waddankiisa aanan dhinacna uga bixin ninna ma diidin waatay sanadkii dhawata baarlamaan ka mid noqdeen ninka la oran jiray ninkaa taqaanada dhoore iyo qowdhan oo ayagaba ka liita geelle xag aqooneed iyo xag shakhsiyaad orod wiilka ka tagaara lagugu riday wareedhe diyaasbaro iyo laba shaatile iyo kaan aqoon lahaynba waa la diiday ragtashay dadweynihii 20 sano ayay waxaa isku jireen haatan hurdadii laga toos shaqsi dalka aan ka bixin oo garyaqaanimaan ka yarayn ma soo galayo baarlamaanka saasaa lagu tashaday war soo ma ogid nabadoon jecle in wiilkiisa dhoore 10kii halaad uu sanadii dhaweyto uu ugu iibshay booskii baarlamaanka hadda ka tali isagoo aanan sanad xilka hayn ayuu odagii iyo habartiiba xajka geeyey wuxuu kaloo soo iibshay 120 halaad oo caanateel ah habeenkii keliyana $1,000 oo lacag ah baa laga soo xareeyaa geelaagana $10 habeenkii lagama soo xareeyo marka wiilka taasoo kaluu rabaa niman asaagiisoo kale ah baa shalay sidaasoo kale yeelay oo intii la garab qabtay aabayaashoodii nabadoonadooda ay garab qabteen arma wiilgeel jiraabuu maanta sidaan ugu helinayaa war aniga xoolahaas xaaraanta ah ma rabo iyo geel buu ku gadayaa kaas reer baadiyaha ah asaagiis hadday shalay sidaas yeeleen tani ma ahantii baarlamaankan ma aha baarlamaankii reerkii aan la iman haldoorkooda reerkaas habaas gacantuu gooye oo reerkaa la siinayaa marka intii xubintaas reero kalena laga siin lahaa 100 qareen iyo 100 aqoon-yahan oo xeerarka iyo diintaba yaqaan baanu leenahay eegaan geysanaynaa ee orodoo naga tag taasina meesha way ku jirtaa laakiin reer baadiye ah lama diidin war iga tag dadkaa kaa badan ninkii kula tashadaana مداحل كاديو